waxaan isku hawlay inaan wax weyn ka bedelo hab fikirka iyo adduun aragga xuduudda ku noqday inaan wax noqono oo aan meel gaadhno dhalinyaro ahaan. waxaan kuu sheegaya caawa inaad isbedeshaay waxay u baahan tahay a lot of things waxyaabo tira beelay u baahan tahay inaad ka baqdo inaad dadku ku dhaliilaan oo tiraahdo niyo cabdi markaan wax qabto saaxiibsaa un buudha niyo cabdi iga xuyan cabdi sideen u qanciya cabdi sideen naftayda ugu qanciya cabdi siduu waxaan qabanaya uga raali noqdaa gabadhan caashiyo aamine iyo xalwe iyo mu'mina siday igu farxaanay igu kulwadayaan hebel soco waxaan doonayaa everyone in life qof kastoo nolosha joogaayey waxaan doonayaa inuu ii raxleeyo ii boodbooda that's not the aim maaha ujeeddadu taa aduu jeedadaadu nooshahay waxa weeyaan xaqiijinta humuumtaada xaqiijinta iyo ka dhabsheega iyo helidda waxa halkan kuugu jira inaad gaadhood ididiilooyinka iyo rajooyinka iyo himilooyinka maskaxdaada ka dhex guuciya heliddeeda ayaa ujeeddada ugu weynaad adugu nooshahay soo maa marka haddii aanad ka korin isku qiimaynta indhaha dadka oo aad mar walba iska soo dhex daawato naftaydii oo tana aan ka soo dhex daawado naftii cabdi oo cabdi siduu ii arka aan idhaahdo definitely waxaan sheegay aasaas iyo sees noloshaydu ay ku tisqaadi lahayd baan sheegay ha ka dhex daawado naftaada indhaha dadka kale dadku waxay ku idhaahaani definitely maaha wax runa inta badan criticismkii dhaliisha xagga dadka kaaga imanaysa qiimee oo adigu kala dooro oo kala shandhay oo kala miir qaarku anfacayaa jira waxaad qiimaysaa oo tixgelinii mudnaan siisaa dhaliisha kugu timiday adigu halkay kaaga timid qofkanay kaaga timiday backgroundkiisa iyo cv-giisa sidaa u yar eeg oo waxaad tidhaahdaa hebel horta dadaaladii iyo halganadii nolosha kaga jira ma ku guulaystay ha wallahi wuu ku guulaystay hebel imse himiluu lahaaba u xaqiiqsamay intuu lahaaba u xaqiiqsamay wuxuu ku nool yahay noloshuu ku riyoon jiray markuu yara markaa ninkaas tixgelin buu mudan wuxuu mudan yahay in aan ka dhegaysto wuxuu leeyahay waayo isagu wuxuu gaadhay meeshuu rabay meeshan aan doonayo inaan gaadhuu gaadhay isagu therefore criticismkiisa positive aan ka dhiganay nacam dhaliishuu ii keenay waxaan leeyahay it's helping me markuu yidhaa maxamedow sidaa ka yardaa sidan samee thank you so much umahadsantahay taas waxaad u qaadataa taa oo kale inaad ku sii riixaysay guushaada iyo xalkaad rabto iyo hankaagu xagguu taagan yahay iyo himiladaada iyo meeshaad ku riyootay inay kuu sii dhawaato kugu caawinay haddii qofka ku dhaliilaya dib u yareeg hadduu yahay hebel iyo heblaayo isla rafatay heblaayo phd ku haysata ka waranka hablaha kale iyo magaalada arrimaha jira heblaayo phd iyo arrimo waaweyn iyo dee waxa ku leeyahay xirfad durugsan u leh iyo khibrad aad u fog u leh inay dadka kale faaqido guulahooga dadka kale fashligooga ka sheegayso heblaayo dee heblaayo marka laga hadlayo dadka qaar sidaa u kala shaandhaysa hebel waa sida heblaayo waa sida heblaayo sida ku fiicantahay heblaayo sida ku xuntahay hebel cabdi ibnu maxay ninkan waa sida marka laga sheekaynayo qof profession ku isaga marka la eegana haddii aan weydiiyo maxay cumar ismaan waa kuma war waa sida maxadka horumarinta aadamaha isagaa aasaasay isagaa tababaran nololeedka waa motivational speaker ama dhiirigeliyo weyn oo adiguna dee aan waxaan ahay cabdimuumin qawrax ama aan waxaan ahay dee caasho faariqa qaxwe oo intaas kuma dhaafin karis adigii ninka sharaxayay background caadi laga sii 30 maydhin oo dhan baad ka sheekeynaysa adiguna inaad soddon marka lagu jiiday in leeg naftaada ka warantahay inaad dadka noocaayo kala iyagu naftoodii la hadhay ee hankoodu liito ee meel hoose ka fikira ee gulaha dadka kale had iyo jeer dhaliila ee dadka kaluun xagga yara xulka yareega cabdi baa guursaday inta gabadhka wuu guursaday look at the negative waxaad ku dhex jiraan adduunkan waxaad arkaysa waxaad fasiranaysa indhahaagiyo naftaada buuxinaya amaad ku qancaysaa maad ka niyad jabaysaa simple waa waxaan kugu dhex jira adiga adduunyada kugu jirta baan ku idhi reflectionkeegii umaagii soo celisay weeyaan adduunyadaad adigu arkaysaa therefore hebel iyo heblaayo ku takhasusay xagga xununana dadka ka eegaan guulahay qofka guulaysta dhinaca xununkaaga haddaad u diyaargalowdo inaad dhaliishay kuleeyihiin dhegaysato waxaan ubaa inaad guulaysanayn iska dhagaxid